بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردي كسور دوادا Rift Valley Medical College وكورس كيني Epidemiology and Biostatics. هو chapter كيني شناد Disease Surveillance. chapter كي وده بيه حن كسر هذا Outbreak Investigation سلوا بارو مركا حنوم إلك قرحه كنا يحكي هذا قاب كحكت داتا لو روريو حنون ليه public health كا استعماله surveillance system كوا عادي مهمة markastana qayb weyn buu ka qaataa public health waxa la hadii surveillance systemka dalkaasi si fiican u shaqeynayo xanuunadii daatadoodii inta xanuun dhacday sidoo kala duwanaayeen outbreak-yadii wixii oo dhan baa lagu ururinaya hadhowta xataa waxa fududaanaysa in si fudud xanuunka looga hortago sidoo kale arday researchka iyo cilmi sameynaya markay doonayeen inay helaan xanuun ku saabsan markiiba way helayaan daatadii marka surveillance-ga dalkaasi si fiican u shaqeeya laakiin marka surveillance-gu buur yahay sida اللي dhulka Soomaalida oo kale surveillance systemkooda aad buu buur surveillance system ay leeyihiin marka inta badan qofku markuu cilmi baaris sameeyo aad buu ugu dhibtoodaa inuu xog helo waa sababta keentay inta badan ardayda in markay buugga research buugga ay qorayaan bias badan u sameeyaan inta xog kale meel kale dal kale outbreak kale oo ka qarxay ama xanuun kale dal kale ka jiray inta soo qaataan dibadna ay magaca uga beddelaan taas ka marka surveillance system dalku leeyahay fiican taasi ma dhacdeen marka cashirkuna waa lesson 6 weeyaan aniga Cabdi Cabdilaahi Cadiis Xuseeni chapter keena contentskiisa waxyaabaha ku kooban yahay kow waa definition inaynu qeexno surveillance systemka ama disease surveillance-ga inaynu qeexno laba inaynu sheegno who performs disease surveillance iyo guta ama yaa sameeya surveillance systemka sidoo kale why do we use public health surveillance maxaanu isticmaalaa public health surveillance-ga maxaanu isticmaalaa sidoo kale source of surveillance data surveillance datada halkay ka timaada ama halkayba isha laga hela waati sidoo kale types of disease surveillance intee loo qaybiyaa ka ugu dambeeyana waxa weeyaan ujeedada loo sameeyo public health surveillance maxaa loo sameeyaa waa maxay ujeedada loo sameeyaa waxaanu ku horeynaynaa waa maxay public health ama waa maxay disease surveillance waxa uu noqonayaa waa system data lagu soo ururinayo xog baa lagu analyze gareynaya lagu taxliilinaya waa lagu turjumayaa xogtaasina inta badan oo xog khusaysa oo xog caafimaadka ay khusaysaa kaasa la yiraahdaa waa disease surveillance ka disease surveillance-gu waxa uu noqonayaa the ongoing systematic collection ongoing waa nidaam soconaya oo systematic collection qaab haysan loo soo ururinayo analyze loo taxliilinayo and interpretation oo la turjumayo of health data xogtii caafimaadka ee meel lahayd essential taasoo muhiim u ah to the planning in la qorsheeyo implementation la howlgeliyo and evaluation laga qiimeeyo public health practice-ka ama howlqabadka caafimaad ee meel laga qabanayo in la howlgeliyo la qiimeeyo la qorsheeyo waxaas oo dhan ay ka caawinaysaa closely integrated with taasoo xiriir dhow la leh the timely dissemination in si waqtiyeysan loo faafiyo to those who need to know loogu faafiyo xogtaas oo loo siiyo cidda doonaysa to those who need to know doonaya inay ogaadaan marka surveillance systemku wuxuu ku shaqeysan horeba soo sheegnay wixii loo yaqaanay epidemiological ama descriptive epidemiology ayuu ku shaqeeyaa si fiican ma ogarasan kuwa waa personkii oo qofkii place-kii oo meeshii iyo time-kii intan uma baahna in aad loo sii sharaxo oo si fiican ba ogaraneysaan oo noqonaya age-ka personku wuxuu noqonaya qofka daadiisii wuxuu noqonaya sex-kiisii male ba female ba wuxuu noqonaya description-kii qofkii sharaxaad laga bixiyo health status-kiisa sidoo kale halkuu ka dhacay xanuunku iyo time-ka oo noqonaya dates-kii taariikhdii la qoro ama hours-kii la qoro ama days-kii la qoro ama months-kii la qoro ama years-kii marka descriptive epidemiology information waxay naga siinayaan cidda gudata surveillance ama public health surveillance ayaa ku shaqeeya public health surveillance ko wax ku shaqeynaya inaga maadaama inagu nahay epidemiology aynu baranayno waan ku shaqeynaynaa qaybta ama sectorka ugu weyn ku shaqeynayana waa inaga sidoo kale waxa ku shaqeynaya dadka caafimaadka medical doctorska ayaa ku shaqeynaya medical professionals caafimaadka bini'aadamka waxa kala jira veterinarians iyo medical doctors iyo veterinarian doctors
marka veterinary doctorska iyo medical doctorska labaduba way ku shaqeynayaan oo doctorska waa ku shaqeynaya nurseska waa ku shaqeynaya clinicska waa ku shaqeynaya xarumaha caafimaadka farmasiyadii ama meelaha xarumihii dawooyinka pharmaceuticalskii meelihii baa ku shaqeynaya waxa ku shaqeynaya dadka caymiska caafimaadka bixiya shirkadaha jira caymis caafimaad bixiya marka health insurance providers iyaguna way ku shaqeynayaan sidoo kale waxa ku shaqeynaya emergency responders kuwa gargaarka degdega ama dadka inta badan waxyaabaha degdega ah ka jawaaba ama xarumaha caafimaadka ha ahaadaan ambalaasyadii ha ahaadaan demdemiskii ha ahaadaan waxaas oo dhanba surveillancega way ku shaqeynayaan marka 990 centriska inagoo kale 990 isticmaalna meelaha qaarkood 110 baa la isticmaalaa qaarkood 31 baa la isticmaalaa 113 baa meelaha qaarkood emergency management technicians dadka waxyaabaha degdega ah farsameeya ama ku hawlan sidoo kale public health departmentskii xarumaha caafimaadka ama meel local ha ahaadaan oo meel gaar ku ahaadaan magaaladii oo kale state gobol gaar ha ku ahaadaan ama federal ba ha ahaadaan nidaam guud oo dalka oo dhan ka dhexeeya ama maamulada oo dhan ka dhexeeya ha ahaado marka intaas oo dhanba way ku shaqeeyaan surveillance marka surveillance aad buu muhiim u yahay halkaas ka garanaysa halkan waa maxay sababtan surveillance-ga u isticmaalano surveillance-ga sababtan u isticmaalana maxay tahay ayaan halkan ku eegaynaa surveillance-ga waxaan u isticmaalnaa waxyaabaha saas in xaaladda caafimaad xumo inuu qiyaaso inuu meesha xanuunka ka dhacayo deegaan ahaan uu sheego natural history disease inuu soo saaro epidemic ama problemkii inuu qeexo in changeska infectious eating ama shayga xanuun sababaha ku dhacaya isbedelada ku dhacaya waxaasoo dhan in la ogaado in la facilitate gareeyo emergency planning in si degdeg ah loo qorsheeyo waxaasoo dhan waa sababta surveillance-ga loo sameeyo marka surveillance-gu qayb muhiim ayuu ka yahay health sectors ama public health qayb aad iyo aad muhiim ayuu ka ciyaaraan marka waa maxay why do we use public health surveillance because it can estimate wuxuu qiyaasi karaa estimation ku sameyn kara the size of a health problem meel ka dhacay size intuu leeyahay baaxadiisa magnitude intuu leeyahay laxaadkiisu intuu leeyahay buu sheegi karaa determine wuxuu go'aamin karaa where an illness is occurring geography ahaan halkee buu ka dhacaya xanuunka inaga soo sheegay descriptive immunology loo isticmaalo placekii oo kale noqonaysa halkaasi waayahay portray the natural history of a disease in uu soo bandhigo ama sharaxo natural history xanuunku leeyahay xogtaa keenaysa dhaatada lasoo ururiyey dhaatadaa keenaysa detect epidemicska ama problemka outbreak meel ka qarxay oo inta badan epidemic wax la dhahdaa marka xanuunku si waqti yar oo kooban population meel ku large population meel ku wada nool xanuun ku wada hal mar ku wada dhaco waa in surveillance baa la sameeyaa si loo ogaado marka oo define a problem ama mushkiladii xanuunka meesha ka dhacday in la qeexo sidoo kale in la monitor gareeyo oo la dabagalo changes in infectious aging xanuunka sababay maxaa isbedel ku dhacaya deegaanka sidee deegaanka ugu noolaan karaa halkii uu deegaanka ku xoog badan yahay infectious age goormo daciifa goormo xoogaysta waxyaabahaas oo dhan waxa keenaya xanuunka soo baxay marba marka xanuunka batana uu xoogaysta marka xanuunka yaraadana uu daciif detect change in health practices ama xarumaha caafimaad qaabka u shaqeynaya iyo dadka professionalski changeska isbedelada ku imanaya ayuu detect gareeyaa oo surveillance-ga isbedelay facilitate emergency planning sidoo kale wuxuu fududeeyaa in si degdeg ah wax loo qorsheeyo surveillance sourceska meelaha laga helo surveillance data xog baad doonaysaa inaad surveillance data xog la ururiyey oo ay doonaysaa inaad raadiso ama surveillance marka doonaysaa inaad sameyso doonaysaa data ama xog soo ururiso health ku saabsan meelahan aad kasoo helaysa waa meelaha lagu kaydiyo marka meelihii baa tegaysa xogta lagu kaydiyo xogta soo qaadanaysa in xogta aad soo qaadatay waxay noqon surveillance data waa xog hore loo kaydiyey manigani waa ongoing systematic collection analysis and interpretation of health data waniga hore ugu soo qeexnay marka waa xogtaa weeye lasoo ururinay ee la sharaxay marka vital records baa jira vital records waa meelaha muhiimka ama recordada muhiimka health maadaama healthka hadda ugu muhiimsan waa hospital records hospitalka marka tagto xog baa laga yaabaa inaad soo hesho death certificateski inta badan dalalku way record gareen inta dhimatay inta dhalataba birth recordski intaaba waa soo qaadan marka waxay ku saalaysaa in soo koratay inta dhimatay
xanuunadii kala duwanaa dadka ku dhacay xanuunka nooca doonaysa wixii oo dhan baad soo ogaanaysaa markaad tagto xarumaha caafimaadka. Inaga laakiin death certificate-kaasi kama shaqeeyo dalalkeena, laakiin police records-ku way isbitaalada waaweyn way ka shaqeeyaan. Marka flight record-ka ugu horeeya waa hospital records-ka iyo death certificate-kii in lasoo ururiyo la ogaado dhimashada sanadkan dhacday iyo police records-kii inta dhalatay. waxaasoo dhan ay keenay in population density halka lagu ogaado. Sidoo kale surveys inaad sameyso, surveyadaas schoolski baad tegeysaa ama doctorski oo dhakhaatiirtii baad survey ku sameynaysaa, xog kasoo ururinaysaa ama iskuuladaad kasoo ururinaysaa. sidoo kale insurance companieska ama kuwa caymiska bixiya LS providerska insurancega caymiska caafimaadka bixiya ayaad kasoo ururinaysaa, survey ku sameynaysaa. waayo environmental monitoring system baa jira oo isagana in meelaha deegaanka iyo waxyaabaha deegaanka uu baahan yahay iyo deegaanka waxa laga helay inaad monitor gareyso, oo iyaguna waxay noqonayaan water quality-ga inaad ogaato ama air quality-ga baaritaan ku sameyso. marka xarumaha iyaguna dee qaabilsan water quality-ga iyo air quality-ga hadday sector ay jiraan kuwaas adigana ka dooranaysaa. sidoo kale animal health data xog caafimaadka xayawaanka ku saabsan haddaad doonayso, inagoo kale xoolihii oo kale xagee laga doonayo, waxa laga doonaya veterinarianskii dadkii cilmiga caafimaadka ama dhakhaatiirtii xoolaha. beerihii baad tegeysaa, beerihi ama ahaadaan vermiska animalska ama vermiska cropska ha ahaadaan. food manufacturingki iyo meelihii warshadaha iyo cuntada soo saara kuwana waad kasoo qaadan kartaa. marka ama foodkaasi ha ahaado inta badan foodka industry soo raw material buu ka sameynaya ama beeraha ka yimi ama cunta xoolaha ka yimi. public health surveillance waa la qaybiyaa, tabs buu leeyahay. tabskaasina waxay ku xirantay marba cidda qabanaysa iyo qaabka loo qabanaya ay ku xirantay. marka saddex qaybood oo waaweyn ayaa loo kala qaybiyaa. saddexda qaybood oo waaweyn ee loo kala qaybinayo surveillance system waxay ku xirantay qabashada. mid waxa la passive, mid waxa la active, mid waxa la exotromic. kan passive-ka inta badan laboratory-ga iyo dhakhaatiirta iyo kuwaas qabanaya dadna waxay u gudbinayaan health department. inta badan surveillance-ga waxaa shaqo ku leh health departments-ka, waa department kaliya wasaaradda caafimaadka ka mid ah surveillance department noqonaysa. marka qaybta health departments-kaas wasaaradda caafimaadka ka mid ah iska leh. haddaba haddii laababka iyo dhakhaatiirta iyo nurseski kuwaasi xog ay hayaan ay keenaan xarunta, passive buu noqonaya. active wuxuu noqonayaa health department professionals ama dadkii ka shaqeynayay xarumaha caafimaadka hadday iyagu xogta soo doontaan oo soo urursadaan, marka active buu noqonaya. exotromicna waxa weeyaan xogtii la doonayay baa waxa laga ururiyay dad yimi dhakhtarka oo xanuunsanaya, dadka marka calaamadihii iyo wixii laga soo riyay baa laga qoray. kaasi marka waa exotromic oo wax ku talagal aan hayso, labadan kale laakiin waa ku talagal. marka different ways of collecting surveillance data fall into three categories. waxay hoos yimaadaan saddex qaybood waa passive, active, syndromic. saddexayn kala eegno. passive surveillance-ga laboratories-ki oo ah meelihii shaybaadhadii, physicians-ka dhakhaatiirta, other regulatory report cases of disease ama meelaha kale regular reports ama reportka joogtada soo saara oo death ama dhimashada oo loo gudbiyo sida local or state health department, xarunta caafimaad ee gobolkaas leeyahay ama magaaladaas ay leedahay in loo gudbiyo. examples ahaan baa dhakhtara meel buu haystaa, clinic buu haystaa, wuxuu soo report gariyay 2 case oo measles ah, isagaa soo report gariyay umay tegin iyagu, laakiin isagaa soo reportkay ka soo qaaday. ama nursing home reports, nursing gabadh nurse ayaa waxay soo report gareysay unusual number of older patients, dad waaweyn oo xanuunsanaya with unexplained rashes oo leh rash ama waxa kasoo yaacay waxyaabo kasoo yaacay funan jirkooda kasoo yaacay aan la garanayn, unexplained sharaxaadooda aan garanayn ayay soo gudbisay. marka nurse-kii iyo doctor-kii baa soo gudbiyey, iyay soo gudbinayaan local or state health department, marka wuxuu noqonayaa passive. laakiin active-ka markuu yahay local department-kii ama state health department-kii ayaa initiate garanaysa in xogta soo ururiso, iyay kasoo ururinaysaa meelihii bay tegaysaa iyaga. local or state health department waa shaqada qabanay, marka hore yaa qabanayay health professionals kale ee nurse-ka iyo doctor-ka. local or state health departments initiate waxay bilaabeen the collection in a sort of information, xogta iyagaa soo ururinaya, shaqaale dirsanaya from laboratories-ka kasoo ururinayaan, physicians-ka dhakhaatiirtii kasoo ururinayaan, healthcare providers-ka dadka caafimaadka bixiyay ay daryeelka caafimaad bixiyay kasoo ururinayaan, oo general population ama bulshada guud bay kasoo ururiyeenba. marka inta badan tan waxa la yidhahdaa marka active surveillance-ga ay health department state-ku ay sameynayaan achieves waxay ku guuleystaan more complete and accurate reporting, inay complete and accurate report dhammaystiran oo sax ah than passive. marka kii passive-ka loo eego waa iyaga xogtii waxoodii waraaqoodii daatada waxoodii iga urursanaya,
uu ka saxsan yahay waana uu ka dhammaystiran way shaqadoodii bay haystaan. So drug surveillance isagu waa mid waxyaabo qof xanuun ku dhaco kale in laga dareemo weyn. tusaale ahaan the ongoing ama systematic collection waa surveillance waan qeexitaankiisa ku noqonay laakiin waan ku xidhaynaa the ongoing systematic collection waa nidaamkaa soconaya ee habaysan xogta lagu soo warinayo analyze lagu taxliilinayo interpretation lagu turjumayo and application of real time indicators for disease iyadoo lagu hawlgelinayo waxyaabaha tooska ee ku tusaya xilligaas saxda ah xanuunkii that allow kuwaasoo ku ogolaanaya for detection in la dareemo before public health authorities ka hor intaan public health dadkii public healthka shaqada ku lahaa might otherwise identify them intaanay iyagu aqoonsan ayaa wixii la aqoonsanaya. tusaale ahaan hospital attendance records recordadii isbitaalka dadkii soo xaadiray ayaa waxyaabihii laga ururiyey ayaa loo gudbinaya ama iyagaa soo doonanaya marka iyagu oral kuma gelin xogna may doonayeen inay urursadaan laakiin xogtan waxay ka timi calaamado bukaanadii dhakhtarka kasoo baxay dadna markaasaa leeyahay xaalad noocaas ayaa jirta dadna xaaladii xogta laga qoray kaas syndromic ku noqonaya. marka real time indicators for disease weeye wala hawlgelinayo. purposeska ama ujeedooyinka loo sameeyo surveillance-ga oo waxyaabaha loo isticmaalo inta badan ururiyo ayaa ama masiibo marka meel ka dhacdo ayaa surveillance-ga la isticmaalaa. marka inta badan wax kastoo meel ka dhaca xaalad caafimaad baa ku dhex jirta xataa shil hadduu yihi. purposes ujeedooyinka public health surveillance has been used waxaa loo isticmaalay for the following types of outbreaks noocyadan soo socda outbreak-a ama xanuunada meesha ka qarxay food poisoning oo kale xanuunada cuntada markay sumowda ka dhasha cancer clusters-ka kansarku markuu bulshada ku bato ama health of the natural or human made ama waxyaabaha khataraha caafimaad ee kasoo baxa after natural or human made disasters masiibooyinka dadku sameeyaan ama kuwa dabiiciga. tusaale ahaan kaloorihii ka qarxay Haiti 2010kii dhulgariirkii ku dhuftay oo kale xaalad caafimaad darro keenay surveillance waa loo isticmaalay. air quality hawadii oo hoos u dhac ku yimi oo 11 September 2001 attacks-kii ka dhacay Twin Towers-ka Mareykanka idan hawadii ayaa isbedel ku yimi marka air quality after the September 11 2001 attacks-kii 2001 dhacay September 11keedii. sidoo kale waxyaabaha loo isticmaalay waxaa kamid ah infectious disease outbreaks loo isticmaalay aanka surveillance-ga loo isticmaalo waxaa kamid ah uu sii socdaa purposeski Ebola waa garanaysaan oo East Africa ka dhacay malaariyada waa garanaysaan oo iyadoo worldwide pandemic-a severe acute respiratory syndrome ama waxa loo yaqaan SARS-ka marka SARS-2 waa kii marka COVID-19 ku ahaa SARS-2 COVID-19 ku ahaa SARS kii horena waa kii jiray 2003 number 1 kii ka qarxay. in chronic health problemska jiitama inta badan chronic ah sida hypertension oo kale diabetes-kii oo inta badan muddo qaata obesity oo buurnaantii qofka peroxide-ka yeesha waxa kamid ah cardiovascular disease xanuunada ku dhaca dhiig mareenka wadnaha iyo xididdada asmadii oo ah xiiqdii waxaan dhan waxay u baahan yihiin dhammaan iska fuudin intan ardayda waxay u baahan yihiin surveillance system in lagu sameeyo. marka casharkeena waa yarada dejiinay maanta way garaa lahaana salakaas maanta ku jirnaa inta casharkaas ku jirnaa assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.